السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وراكسن أصحابي ملكستو هاد نقد عوريسان وهبين نمو سبدي أحدي أي سوق ليسو تاريخ دونا وسديد نوفمبر سنة كالباكون يشاني لبات وضب مهمة أي نعاو برنامج كوفا فاهنينا حوتيين تأو شيغي إني قبتين بساسين وشقين يي سعودية مريكن كأي إسرائيل هذا بقى maxay doonayeen basaasiintaas oo ay basaasayeen xog faahfaahsan oo warbaahintu ay ka hadlayso aynu barnaamijkeedii kugu haynaa qodobka kale ee barnaamijka muhiimka caawaan idin hayay wuxuu yahay Mareykanka oo ku eedeynaya Iran in ay dilisay oo ay qorshe u maleegtay inay ka takhalusto مسؤول سري أو إسرائيلي طلعوا مسؤول كاسي واكي إيران سمحي كتري وربان دين هيا وعسو كلي برنامج كغيبها الضنباء ندي كوغسو قدبين دونا وربحين عجيبة أو كصابسن ماشي مانتا لغسو ساري سرقال كي يهودي هالا فيهيسا إذا ماذا إسرائيل مدر بلوضة أي كرادينيين حكتنا ويهيين سرقال كينو ماشاكو حباليهي وين أركي وايين haddaba sababtaasu iyaduna ay arika u dhacay maxay tahay warbixin baan yana idinkaga haya qodobadaas caawa barnaamijkeena ku dhageysta wixii soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa inay jirto shirkadda caan baxda shirkadaha uga duwan waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani. dhismaha koowaad waxaa laga diyaarinayaa waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waxageer waa City Park Drive. waxaana lagu magacaabaa dhismahaas Parkland ee shirkadda Emara ay ku diyaarisay The View Apartments. dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkaddaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi. dhismaha isaga ee Kilimanina waxaa lagu magacaabaa Emara Heights. haddaba bulshooy meel kastoo dunida aad ka joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan Emara Luxury Homes. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba caawa waa habeenimo sabti axad ay soo galayso qodobka ugu horeeya barnaamijka oo ah kii saddexaad ee maanta aan idiin soo gudbinayo. waan hubaa inaad ka hesheen macluumaadkii wararkii barnaamijkii ugu horeeyay subaxnimo iyo kii galabnimo. haddaba barnaamijkeena saddexaad waxaynu ku bilaabaynaa Iran ayaa waxaa la leeyahay waxay maleegtay qorshe la yaab leh oo ay kaga takhalusi gaartay mas'uul weyn oo Israa'iili ah. haddaba marka sheekadan waa isa soo tartay saacadihii la soo dhaafay warbaahinta caalamka oo dhan ayaa ka hadlaysa. haddaba warbixin ayaa laga qoray kadibna wixii laga yiri ayaynu u gudbi doonaa. jiradda la yiraahdo Al-Qudus ayaa waxay qortay caawa warbixin ay leedahay Washington waxay ku eedeynaysaa Tehran inay maleegaysay dil shirqool ah oo lagu samayn lahaa safiirka Israa'iil u fadhida dalka Mexico. Iran arika waxay ku tilmaantay eedeymahaasi kuwo beena oo waliba been weynaatay ah ayay yiraahdeen Iiraaniyiintu. haddaba warbixintu way sii socotay. Washington ayaa waxay ku eedeynaysaa Iran inay markaa maleegaysay qorshe iyadoo galinkii dambe shalay warkan ay soo saareen oo Jimco ahayd Mareykanka. waxaana la sheegay gabar safiir Israa'iil uga ah Mexico ama waddanka Mexico inay markaa
iiraan ay qorsheynaysay inay gabadha ka takhallusto oo ay disho. mas-uul maraykan ah oo isagu ka gaabsaday magaciisa in la baahiyo ayaa u sheegay warbaahinta in hawsha ay ka shaqaynayeen ciidanka ilaalada kacaanka iiraan oo markaa ay hawsha wadeen tan iyo sanadkii 2024 iyadoo markaa iiraan ay doonaysay inay ka takhallusto, laakiin la sheegay in laga hortagay oo la badbaadiyey gabadha safiiradda ahayd. marka iiraan maraykanka wuxuu leeyahay hawshaasay rabtay inay samayso, weliba ciidankeeda ilaalada kacaanka ayaa waxay doonayeen inay khaarijiyaan. haddaba gabadha safiiradda ah ee mexico joogta maxaa loo beegsanayaa? maxaa iyada tooshka ku ifiyey? maxaa mas-uuliyiintan kale ee ka dhow loo aadi waayey? waxaa leeyahay gabadhan waa gabar aad ay isugu dhow yihiin qoyska netanyahu ayay warbaahinta qaar leedahay. marka waa gabar netanyahu gabadhiisoo kale ah. marka nimankan marka waxay doonayeen inay markaa khaarijiyaan oo ay ka aarsadaan. haddaba marka maraykanku waxay leeyihiin arrinkaa waa laga hortagay. taa marka waxay keentay cabsi weyn oo safiiradii israa'iil ee caalamka oo dhan hadda ay khalkhalsan yihiin oo ay aada u baqayaan, iyadoo laga baqayo iiraan inay aargudasho la yaab leh samayso bilaha soo socda, maadaama dhowaan la khaarijiyey rag waaweyn oo taliyaal ciidan iyo rag waaweyn oo khubaro dhinaca nuclearka ay laga khaarijiyey. haddaba qodobka halkaasaanu kaga gudbaynaa. qodobka labaad caawa waa qodobka ugu weyn ee warbaahinta haysta. xuuti ayaa war soo saaray. xuuti caadi maaha. xuuti caawa dagaalka waxay soo geliyeen sacuudiga. waxay yidhaahdeen basaasiin ama jawaasiis u shaqaynayay maraykanka, israa'iil iyo sacuudi arabiyaan qabanay. waxayna ku tilmaameen weliba howlgalkaasi amni mid guul weyn oo taariikhiya u ah, sababtoo ah niman halis badan ayaa la qabtay. nimanka kanu marka maxay ahaayeen? maxay ka shaqaynayeen? shaqadooda iyo waxa ay basaasayeen maxay ahayd? xuutigu waxay leeyihin nimankan 3 arrimood ayay u socdeen oo ay wax basaasayeen. arrinta koowaad, madaxda xuutiyiinta ayay rabeen meelaha ay joogaan oo laga heli karo inay marka hore soo basaasaan, iyagoo isticmaalaya dhaqaale wax walba lala daba taagan yahay. kow. qaybta labaad, waxay ka shaqaynayeen meelahan gantaalaha xuutigu ka soo rido iyo daroonka oo maraykan iyo israa'iil ku wareereen, oo sacuudiga xataa markii xuutigu dagaalamayeen ku wareeray in markaa 3 sirdoon oo iskaashanaya sacuudigana loo maray inuu yamaniyiinta keenay oo soo qoro isaga ayaa waxaa leeyahay iyaguna hawsha ay ka shaqaynayeen. qolo saddexaad oo marka waxaa jirta lagu leeyahay iyaguna ka shaqaynayay xarumaha dowladda kuwa ugu muhiimsan, dad badana xataa garanayn oo yamaniyiina. macnaha dowladdu halka ay ku shaqayso badanaa lama yaqaano. meelaha xafiisyo waxaa jira aad muhiim u ah uu mararka qaar soo fariisto cabdimalik al-xuutiga hogaamiya xuutiyiinta iyo meelahaas meelaha ay ku yaalaan. marka 3daas ayay marka hawshaa ku jireen. marka waxay ku tilmaameen injaaz guul weyn ay ku tilmaameen, injaaz taariikhi ah oo markaa guul weyn oo taariikhi ah inay maaragtay nimanka xuutigu sameeyeen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray. jariirada la yidhaahdo ra'yul yawm ayaa waxay leedahay kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta dalka yemen waxay sheegeen inay qabteen shabakad jaasuusiin ah oo markaa basaasiin ah, kuwaasoo la sheegay in ay la shaqaynayeen si toos ah meel ay ku xirnaayeen oo si wada jira u kulminaysay sirdoonnada dalalka maraykanka iyo kuwa israa'iil ee muusaad iyo sirdoonka sacuudiga. tallaabadan xuutigu waxay sheegeen inay ahayd guul amni oo markaa taariikhi ah oo weyn inay dhacday. fiiri waxaa lagu leeyahay waxay ka shaqaynayeen ghurfatu camaliyaad, macnaha meel ay xogaha ku soo aruursanayeen 3 sirdoon ayay samaysteen.
shabakadanna way la shaqaynaysay yaman gudaheeda iyo qaar kale meelo kale joogay kulli shabakadan marka shabakadan basaasiinta ah waxay toos u hoos imaanayeen qolkan ay saddexda sirdoon ka shaqaynayeen oo ay fadhiyeen meesha xogta kusoo shubayeen marka waxay yidhahdeen xogo badan aan helnay marka intaas marka waa caadi Israa'iil iyo Mareykan iyo Xuuti muddadii ugu dambeysay dee nagti isku hayeen waxba la isku lama harayn waa la isduqaynayay laakiin sheekada oo newska weyn ah waxay tahay Sacuudiga oo Xuuti basaasaya la shaqaysanaya Yahuud iyo Mareykan taas way midda qabsatay warbaahinta oo dhan Carabi dhimatay Carabi ma noola war Carabi ma jirto way baaba'een mid walba waa daba dhilif waxa lagu hayaa social media hadda gasho waa yaabaysaa marka adikuna bal fakari aragti waxaad sheekada ka qabtaan noo soo qora qadar xayeysiisa kadib warbixin xiiso leh idin hayaa maanta waxay sheegeen Al-Qassam nin sarkaal oo Yahuudi ah lafihiisi inay ka heleen Rafax laakiin lafahan 3 bilood waxa meesha ka raadinayay oo arki waayay Yahuudi kale oo macnaha ciidanka Israa'iil hadaba xogtaas aan idin hayaa haysiinta kadib متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هبا عصرية أونلاين أديكو جوجو غوريغاغا أما قوبتا هذا شقدا مركز دار التقوى وحكوكو بري القرآن هبا عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكمدا قرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوان قلت واي سعوتا فضلا هروكاد وهي فافاهينا كلا حديد نمبر شاشة كان المغضى هموكاد دوكسيغا مركز دار التقوى شركة اسمها قريها قبل هومس شركة قبل هومس waxay mashaariic ka wadaan Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah guri kastana waxa uu leeyahay masaajid madaraso swimming pool iyo gym playground meelaha lagu caweeyo ama sitting area wiishashkii motor automatic ah ceelbiyood internet parking supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liban Ali adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo emailka shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo haddaba waa habeennimo sabti axadi ay soo galayso waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa aanu ku soo qaadanayno caawa barnaamijka qaybtan waxaanu ku haynaa warbixin kale oo ka mid ah wararka xiisaha leh ee caawa aanu idiin soo diyaarinay maantaydii hore barnaamijkayga galabka waxaanu ku sheegnay in nin sargaal oo weyn oo Yahuudi ah lafihiisii la helay oo Israa'iil loo dhiibay sargaalka inuu nin muhiim ahaa oo nin weyn ahaa la iskuma hayo haddana abaanduulihii ciidanka gurigiisii tagay iyadoo lafihii weli aan la soo xaqiijinin baaritaanka uu ku socdo ayuu gurigiisii tagay abaanduulaha macnaha inuu nin muhiim ka ahaa Israa'iil xaggeeda ayaa dareemaysaa ninka halka lafihiisa la geeyay marka ninkan waxa lagu leeyahay xog marka Al Jazeera ay heshay caaw waxay leedahay sirdoonka Israa'iil waxay heleen ninkan godka laga soo saaray maanta inuu godkaas ku dhintay sirdoonku way hayeen ciidamada Israa'iil meesha soo galay 3 bilood ay meesha baaritaan ku hayeen si ay lafaha ninka u soo saaraan nakata way soo saari waayeen maanta Xamaasa tagtay dhag laba meel dhaxdo waa la soo bixiyay kan waa asaga meel kale la baaray kuwana waa shuhadadii alina la socotay see ku garatay waa daaday barnaamijkii hore kaga hadleeyay marka sheekadaas cajiibka ah ayaa hadda soo korortay haddaba marka aan tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil waxay baarayeen lafaha ninka la yiraahdo Golden oo marka ay isla godkan Rafax maanta laga helay ay ka baarayeen
hay-adda wararka faafisa israa'iil ayaa caawa sheegtay in ciidamada israa'iil ay markaa maalin walba muddadii ugu dambeysay baaritaan ay ku wadeen si ay u helaan hadaar golden oo ah sargaalka godka laga helay marka godkaasay baaritaan ku hayeen iyadoo maanta keliya oo kataa'ibul ciisadiin alqasaam ay halkaa tagtay ay soo saareen marka laba arrimooda la isku hayaa sababta ciidanka israa'iil lafaha u soo saari waayeen oo ay u arki waayeen waxaa la yidhi yaa firaaqo fiican oo ay wax ku baaraan siinay nimanka wadnama hayaan waa baaba'een fulaynnimaa la tagtay baabays goorbeen marka qofka uu niyad wax uu ku baaro iyo wax uu meel ku qodo iyo hela meeshii inta loo diray inta dhahaana soo cararaana liin qolaa saas ku doodays qolana waxay leeyihiin maba arkinba nimanka laakiin iyaga way ogaayeen meeshii dadka inay ku dhinteen markiiba meeshii abbaareen way soo bixiyeen marka warbixinadaas ayaan caawa barnaamijkeena kusoo qaadanay laagareeya oo sheergareeya barnaamijka meel kastoo aad joogtaan fakarkiina aragtidiinana soo qora nabadgelyo